waxaan aad u danaynayaa oo horan u danaynayay in isbedel dhab ah dawladnimada Soomaaliyeed laga sameeyo oo ay horumar ku talaabsato waxaan ku dhashay magaalada Caawdwaaq 1984 anigoo ka soo jeedo magaalada Xaradheere Ceeldheer iyo Galcad waxaan dugsiga hoose dhexe sare iyo heerkayga jaamacadda koowaad ku qaatay magaalada Muqdisho heerka jaamacadeeda labaadna waxaan ku qaatay Muqdisho iyo dalka Malaysia waxaan ka soo qayb qaatay oo aan ka soo shaqeeyay hay'ado samafal oo aan dawli ahayn iyo hay'ado oo private ah oo maaragtay public iyo private isugu jiro intaba in muddo ayaan shaqadooda ku soo jiray 16 October maalin axad waxaa markii ugu horeysay anigoo ah qofkii ugu horeysay dumar ah la ii doortay senatarkii ugu horeeyay ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ku matalayay dawladda dhexe waana taariikh maaragtay qorantay in ay noqoto gabadhii ugu horeysay